annaka iyo dowladda dhexe anuu baarlamaankan ku jiray xamar intii hadda uunaan maamulkan khaatumo ahaanun baanba ka sii maqnaa waxa dastuurka ku yaalana waa ognahay waxa waaqicu yahay ee hadda la rabo in gobolada lagu dhisana waa ognahay waxa la isla raadinayo intay la eg yihiinna waa ognahay anagu waxaan ku kalsoonahay hadday dad tahay tiro iyo hadday dhul tahay intuu la eg yahay mid walba khaatumo inay anagu odhan mayno maxaa kuwa gobol looga dhigay laakiin waxaan qabnaa ku kalsoonahay in dhulkaas uu istaahilo xaq u leeyahay inuu noqdo gobol ka mida gobolada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Su'aal kale aan rabaa madaxweynaha ka weydiiyo khilaafka dhawaan soo food saaray madaxweynaha Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Sheekh Axmed. Murankaasi wuxuu ku saabsan yahay markii ra'iisul wasaaruhu uu sameeyay reshuffle ama isku shaandhayn dhinaca wasiirada. waxaad hore u ahaan jirtay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya markaad eegtid dastuurka Soomaaliya lagu dhaqmayo ma saamaxaya in uu xaq u leeyahay ra'iisul wasaaruhu ama shaqadiisa ma tahay inuu sameeyo reshuffle ama isku shaandhayn ama inuu nin wasiira shaqada ka saaro oo kale mise waa inuu kula noqdo madaxweynaha walaaliga waxa meesha yaala ee waaqaca yaala iyo waxa dastuurka ku yaala ma wada socdaan ilaa aanu markaan prime minister ka dowladda carta ilaa maantadan aan joogno ama han noqoto charterkii markaa jiray carta ama dastuuradan labada ah ee waagi Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto prime minister ka ilaa maanta mid walba waxa ku yaala muddadii Maxamed Siyaad Barre mooyee tii ku horeysay iyo wax laala wixii ka dambeeyay shaqada waxa la prime minister ka council of ministers ka leh madaxweynaha articleska tilmaamaya awoodiisu waxay tahay dastuurka waa la yaqaanaa meelay ku taalo madaxweynuhu hawshiisa ugu weyn ee dastuurku faraya waxa weeye inuu magacaabo prime minister madaxweynuhu prime minister ka shaqo kama eri karo madaxweynuhu in la wada tashado waa habboon tahay marka uu dowlad soo magacaabana inuu madaxweynaha ula tago waa xaq laakiin hadduu reshuffle samaynayo waliba reshuffle hal wasiir iyo laba iyo anigu saan dastuurka u arko prime minister ku xaq buu leeyahay waayo aan ka gudubno su'aasheeda ugu dambaysa ee inagoo waqtigan ciriiri aan ku soo gabagabeeyno waraysigeena waxa weeye dadka reer Khaatumo imka aad u timay Mareykan jooga iyo kuwa kale maqana gudaha wadanka jiraba waa maxay fariinta aad si toos ah u gudbinaysid fariinta waa maadsantahay inaad fursada ay siiso midaan u jeedinaya waxa weeye qadiyaddeena waa qadiyad xaq ah qadiyadda tan wax saayida dadkan uma ay rabaan haddii lagula dagaalamayo aayaha yagaanu ka talinaynaa waa shiraynaa waa tashanaynaa wixii aanu dan moodnaan yeelanaynaa dowladda Soomaaliyeed 1 bilyan iyo nus bilyan baa sanad walba adduunyuhu ku bixiyaa inay dhistaan maamul hab federaaliya ay dhistaan tii uun oo cidina 1 shilin ayan siin yaa Khaatumo 3 sano ugu dambeysay ay waday waa qadiyad xaq ah waxaana waajib nagu ah si allaala sida aynu ku suurto gelin karnaba inaynu yeelo midda labaad Khaatumo ilaa maalintii arinteeda la asaasay ilaa maanta doodeedu waxay tahay inay ka mid tahay dowlad weynta ama habka federaalka ee Soomaaliyeed kala googo inayn ogolayn iyaduna ayan ka go'ayn cid kale oo ka go'dana inayn ku taageeraynin labada arrimoodba laba arrimood oo maamuladan dariska la leeyahay ay diidan yihiin weeye mid walba say doonayso ha u diiday waxa markaa mudan culays badan baa dadka saaran reer Khaatumo ama wadanka dibadiisa joogeen ama gudihiisa joogeen waa meesha quree dagaal ka socdo ee dhig ka daadanayo ee barakicina ay jirto waana qadiyad istaahishay in intaaba loo yeelo gobonnimadu iyo qadiyadda midnimada Soomaaliyeed anigu waxaan cali ahaan qabaa shacbiga reer Khaatumana inay ay ku mintidaan oo u dagaalamaan
in midnimada soomaalidana la daafaco ummadaasu inay iyadu ka taliso aayaheeda taariikhdeedana cid ka tirtiri karta ayaan jirin mustaqbalka caruurteedana cid ka boobi karta ama ka dhici kartaana inayan jirin laakiin waxaa laga yaabaa ama hadda ay u muuqataa in dhiig u daadan doono halgan badan loo geli doono lagana yaabo sidaan u jecelahay dhaqso inayn ugu dhammaan in loo dhabar adeego mar walbana lagu dadaalo in la midoobo siyaasaddu maalinba meel bay joogtaa dad laga yaabo inayn sidaynu hadda u aragno ayaan u arag oo dhulka u dhashay oo reer khaatumo ah in loo dulqaato in laguna dadaalo giddigeen in aynu ku hiranno danaha aynu wada leenahay ee xaqa ah وهاجاك داود أنت سيان كسور قبل ورئيسي عن لا شيء مدحونا خاتم ستيت اوف سوماليا بروفيسور علي خليف قلير أو استوديو هنا مقالة سان بول سووا مانتا نقص بغضي واحد ستة سووا داون سن ورئيسي الناسي كلسن تي في كان تانيو كلن كان الدنبه أنت المرد ما كوكل مدونه ورئيسي كانوا كلا أما برنامج كانوا كلا وعلى حرارة دمانتي بدك يتجيا سيدا يو نبت قليو مدن مدحونا أدول ما سنت. Thank you very much.